al-shabaab oo 7 qof oo isugu jira odayaal dhaqan iyo dhalinyaro diiday inay u dagaalamaan ku gowracay deegaano duleedka ka ah magaalada Baydhabo. khilaaf culus oo soo kala dhex galay hogaamiyaasha al-shabaab iyo saraakiil sare oo ururkaasi ka tirsan oo iyaga dhexdooda isdilay. gudoomiyaha degmada Yaaqshiid oo maanta ka badbaaday qarax la doonayay in lagu khaarajiyo. madaxweyne Dani iyo golihiisa wasiirada oo kulan aan caadi ahayn hadda ku leh madaxtooyada Garowe. midowga Yurub oo beeniyay in markab laga leeyahay dalka Panama lagu afduubtay Soomaaliya. lacagta shilinka Soomaaliga oo aan in muddo ka shaqeynin magaalada Dhuusamareeb xilli dadka magaaladaasi ay sheegayaan inay hayaan shilin Soomaali badan oo aanay jirin meel ay geeyaan warbixinayaan idinkaga haynaa. guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo maanta ku dhawaaqay waqtiga ay qabanayaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo tan deegaanka. maxkamad ku taala dalka Jarmalka oo xukun ku riday gabar Soomaaliyeed oo dhawaan ka badbaaday fal kufsi ah. shirkadda TikTok oo dacweynaysa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. iyo madaxweynaha Belarus oo sheegay in ururka NATO ay qorsheynayaan weerar ka dhan ah dalkiisa. markale duhur wanaagsan waa duhurnimo axad ah 23 bisha 8 sanada 2020 warka duhurnimo ee radio kulmiye waxa si wada jira u soo jeedinaya anigoo Amaali Axmed Saciid Axmed waxa soo saaray Axmed Maxamed Ibrahim ku soo dhawaada qodobada aad dhageysateen oo dhameystiran. aynu ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo deegaano duleedka ka ah xarunna u ah gobolka Baay waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay halkaasi ku gowraceen dad gaarayo ilaa 7 ruux oo 4 kamid ay ahaayeen odayaal dhaqan. sidoo kale waxa jira dhalinyaro kale oo shabaabku ay dileen kuwaas oo diiday inay u dagaalamaan. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warbixinta warkan soo jeedinaya. wararka ka imaanaya tuulooyin hoos yimaada deegaanka Goofgudud Buuri ee gobolka Baay ayaa sheegaya in dadka ku nool halkaasi ay wajahayaan dhibaatooyin aad u daran sida gowraca, dhaxantiyadeed iyo caruurtooda la qafaasho. saddexdii maalin la soo dhaafay waxa dagaalamayaasha al-shabaab ay gowraceen 7 ruux oo kala ah 4 oday iyo 3 wiil oo dhalinyaro ah sida goobjoogyaal ay u xaqiijiyeen KNN. sababta arintaasi ka dambeysay ayaa la tilmaamay in ay tahay kadib markii al-shabaab ay dulligeen dadka deegaanka amaro kuwa oo ay ka biyadiideen waxaana kamid ah amaradaasi in qoys waliba uu bixiyo 2 wiil si ay ugu biiraan al-shabaab iyo inay bixiyaan xoolo nool iyo waliba lacag. wararka ayaa inta ku daraya in dagaalamayaasha al-shabaab ay ka kaxaysteen deegaanka Buulfulay oo ka tirsan gobolka Baay ku dhawaad 12 oday dhaqameed kuwa oo aanan la garanin halkii ay la aadeen. sidoo kale al-shabaab ayaa amaradan ay ku soo rogeen dadka ku nool deegaanka Goofgudud Buuri iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa si la mid ah waxa ay ugu soo rogeen deegaanada kala ah Daynuunay, Shanqolow, Tooswiine, Galgal, Baagay, Boorami iyo Mooro Waraabe. weli waxaan jirin war ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda Soomaaliya ee ku aadan arintan. Axmed Maxamed Ibrahim aad buu mahadsan yahay. dhinaca kale khilaaf culus ayaa soo kala dhaxgalay hogaamiyaha al-shabaab iyo saraakiisha sarsare ee ururkaasi al-shabaab xilli saraakiil kale ay dhexdooda al-shabaab iska dileen. khilaaf aad u xoogan ayaa soo kala dhaxgalay saraakiisha ugu sarreysa dagaalamayaasha al-shabaab taasi oo sababtay in hogaamiyaha ugu sarreeya kooxdaasi ee lagu magacaabo Axmed Diiriye uu ka tegay deegaano ka tirsan gobolka Gado. hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay isku dhaceen sargaal la yiraahdo Afido oo inta badan al-shabaab ay u qaabilsan koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale sirdoonka Jubbaland ayaa sheegay in khilaafka uu markaas soo shaac baxay isbuucan iyadoo arrintaasi ay keentay in saraakiil loo dilay khilaafka halka kuwa kalena xabsiga la dhigay. gaashaan la sare Khaalid Sheekh Cabdullaahi taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab ay dileen sargaal uu lagu magacaabi jiray Cabdifataax Baare kaas oo si weyn uga howlgali jiray deegaanada Jubbada Hoose halka ay xabsiga dhigeen nin uu magaciisa ku sheegay Oday Guure waa sida uu hadalka u dhigay. taliyaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in loo baahan yahay in dagaal adag lala galo dagaalamayaasha al-shabaab si looga faa'iideysto khilaafka soo
kala dhexgalay. burburkoodu wuu soo dhow yahay insha Allah wayna iska burburi doonaan. waxay u burburi karaan nimankaas in la iska celiyo u diyaar garowno dalka ka saar khilaafka shabaab dhexdiisa ninka Axmed Diiriye meeshii uu haystaa mahadkaartay iyo Axmed Diiriye iyo wadana waa la isdardaray kulliida warbixinada u dambeeya waa laga xoog badiyay mahadkaartay hadda usbuucan u dambeeyay Cabdifataah Baari in la yiraahdo oo dadkii hadda jubooyinkan aadka noogu dhibay ah xabsiga dhexdiisa ku dileen hada 2 usbuuc ka hor sidoo kale ninka la yiraahdo oday goora ay yaqaanaan oo ahaa nin inta badan shabeellada hoose iyo gobolka Banaadir iyo dhibaato badan ummadda Soomaaliyeed u geystay isagana usbuucan dhexdiisa ay xireen waxaana keenaya khilaafka iyo dowladda sida daraadeed inaan bulshooyinkeena Soomaaliyeed dhamaanteen aan u istaagno sidaan nimanka isaga dhicin lahayn waa dad yar oo kooban oo dad aan hadii si dhab loo fiiriyo aan tabar badan lahayn laakiin waxa inaga mashquuliyay waxyaalo inta dadka falaqeeya arrimaha amniga ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeya hogaamiyaasha kooxda al-shabaab uu salka ku haya awood qaybsiga iyo dhaqaalaha laga qaado dadka shacabka sida loo maamulayo. haddaan markana dib ugu soo laabano magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolkan Banaadir ayaa maanta ka badbaaday qarax la doonayay in lagu kharijiyo waa Muuse Geesi Jimcaale. gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Muuse Geesi Jimcaale ayaa barqadii maanta ka badbaaday qarax miino oo lala eegtay gaarigiisa xilli uu marayay wadada hormarta garoonka kubadda cagta ee Injineer Riiso ee degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir. qaraxa lala eegtay gudoomiye Muuse ayaa waxa ku dhintay hal qof oo ah wada mooto bajaaj sidoo kalena uu ku dhaawacmay qof dumar ah sida ay sheegayaan wararka. inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxaasi ay ku dhinteen 2 qof oo shacab ah tiro kalena ay ku dhaawacmeen. gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir Muuse Geesi Jimcaale oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in qaraxaasi uu qasaare ka soo gaaray dad shacab isla markaana ay ka badbaadeen iyaga. ka war hesheen ba in saaki miino soo booda ayaa gaariga loo dhigay alxamdulillah ilaahay uu naga badbaadiyay inkastoo dad masaakiin oo shacab oo wadada maray ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen alxamdulillah anaga waa badbaadnay aniga iyo askariga waa fiicanahay yani dhaawac gaaray anaga gaarina waa helayna insha Allah wax dhibaato ma jiraan waa degan yahay ilaahay nimcadiis inta aan ugu wiil dhintay iyo gabar dhaawac waa huba qasina la dhaxgeliyay qashin. amniga magaalada Muqdisho ayaa noqday mid faraha ka baxay muddooyinkii dambe iyadoo magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan oo iskugu jira ismiidaamin iyo kuwo dhulka lagu aaso. toddobaadkii la soo dhaafay ayay ahayd markii isla degmada Cabdulcasiis uu ka dhacay qarax weyn iyo weerar toos ah oo ay koox ka tirsanaa al-shabaab ay ku qaadeen hotel Elite ee magaalada Muqdisho halkaas ay ku dhinteen dad fara badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo golihiisa wasiirada ayaa kulan aan caadi ahayn hadda waxay ku leeyihiin magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi Puntland. kulanka waxaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya warkan. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kulan aan caadi ahayn xilligan waxa uu xarunta madaxtooyada maamulka Puntland ee magaalada Garowe uu kula leeyahay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi isaga oo kala hadlaya arrimaha siyaasadeed ee xilligan ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan marka loo eego dhinaca doorashooyinka dalka ee laga soo saaray shirkii dhawaan lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb iyadoo Puntland ay ka maqan tahay shirkaasi. waxaana madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu ka hadli doonaa goobta isagoo ka jeedin doono arrimaha uu ka damacsan yahay qodobada ka soo baxay shirka magaalada Dhuusamareeb walow Puntland ay hore u cadaysay mowqifka ay ka taagan tahay shirkaasi. qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee madasha ku sugan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan jirin go'aan ilaa iyo iminka leesla meeldhigay balse laga doodayo soo jeedinta qodobada qaarkood ee madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu soo jeedinayo. Siciid Deni mar kale waxa uu doonayaa inuu qaado tallaabo dhaxal siin karta in xubnaha beesha caalamka ay sii qaataan go'aan kale oo xasaasiyad abuuri kara haddii uu isku dayo inuu sameeyo kulan loogu yeero dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ku lug leh. kulanka ka soconaya madaxtooyada magaalada Garowe ayaa ku soo beegmaya iyadoo xalay uu qabsoomi waayay kulan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu codsaday isla markaana lagu qaban lahaa xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Garowe balse xildhibaanadii golaha wakiilada ee loo diray fariimaha ayaa 11 ka mid ah kaliya ka soo jawaabay. balse xaaladda siyaasadeed ee xilligan laga dareemayo deegaanada Puntland ayaa intooda badan waxa ay tahay mid ka dambeysay shirkii Dhuusamareeb oo Puntland iyo Jubbaland ay ka maqnaayeen xubnihii ka qayb galay shirkaasi ay ka soo saareen go'aan ay ka gaareen nidaamka doorasho ee dalka lagu dhaqayo.
markana midowda Yurub ayaa beeniyey in markab laga leeyahay dalka Panama lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland. warkan ayaa dhawaan soo baxay sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Reuters. howlgalka midowda Yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda Soomaaliya ayaa tafaasiil ka bixiyay markabkii la sheegay in asbuucii hore lagu afduubtay xeebaha deegaanada maamulka Puntland sida ay daabacday wakaalada wararka ee Reuters. howlgalka EUNAVFOR oo shaaca ka qaaday inay baaritaan ku sameeyeen dhacdadaas ayna ogaadeen inaysan jirin wax afduuba isla markaana markabka uu xeebaha bareeda u tagay cilad farsamo. warbixinta howlgalka ayaa lagu sheegay in markabka xeebtaasi magaalada uu u tagay si uu uga gaashaanto badxiran. marxaladan la joogo dhacdadan ma noqon karto fal burcadbadeednimo oo ka dhacay badda balse faahfaahin ayaanu ka bixi doonaa baaritaanka ayaa lagu yiri warbixinta. markabkan oo lagu magacaabo Aigan 2 oo ku safrayay calanka dalka Panama kana yimid dekada Sajah ee Imaaraadka Carabta kuna sii jeeday dekada Muqdisho ayaa wuxuu shidaal u waday ganacsato Soomaaliyeed. markabkan oo laga leeyahay Greece ayaa shalay ku xirtay dekada magaalada Boosaaso halkaas uu uga gudbi doono Muqdisho iyadoo maamulka Puntland sheegay inay saareen ciidamo amnigiisa sugaya. lacagta shilinka Soomaaliga oo aan in muddo ka shaqeynayn magaalada Dhuusamareeb ayaa dadka magaaladaasi waxay sheegayaan inay hayaan lacag Soomaaliya oo tiro badan oo meel ay geeyaan aysan jirin. haddaba wariyahayga Liibaan Nuur Xasan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Dhuusamareeb waa magaalo ceenkee ah. meeshaani waa meel duceysan sida aan hubo dadkeeda waad aragtaa waa qurux badan yahay. hadda ka hor nin oo maqaal ka qoray wuxuu yidhi dadka gobollada dhexe weliba galguduud xeeb iyo xuduud waxay ku nool yihiin nolol dabiiciya oo dabaysha la mid ah. beer ma arko, webina ma arko, mana arko bad. sidaasi daraaddeed nolol dabiiciyay ku nool yihiin. bini'aadamka noolna waa u qurux badan yihiin buu yidhi. inkastoo magaaladani uu ku socdo horumar dhan kasta leh haddana ganacsigeedu waxa uu geb noqdaa markii ay anteenadu xumaato. caqabadda ugu weyn Dhuusamareeb waxa ay ka haysataa qiimo la'aanta lacagta keliya ee dadka Soomaaliyeed ay milkiyadda u leeyihiin waa shilin Soomaaliga. isticmaalka shilinka Soomaaliga magaaladan waxa uu ka suulay 5 sannadood ka hor mana jirto cid ku howlan dib u soo celinta qiimihii shilinka. markii aad weydiiso dadka ku ganacsada magaaladan sababta aysan u isticmaalin lacagta shilin Soomaaliga ah waxay ka sameyn yihiin kelmadda ah waxaanu nahay gobol ka mid ah Mareykanka waxaan dollar ahayna waxba kuma iibsano. kan meeqa kan $1 shilin Soomaali meeqa noqonaya ma shilin Soomaali ma qaadan sorry ma qaadanina bariyahan dan garman ku dambeeyay Soomaali marka hore bariyahan gobol Mareykanka mid aan noqon waxaan qaadanaa US tan dollar wada meesha waa ku baahay garman ku dambeeyay marax ku gadato adiga 4 sano meelahaas ma moogna shilin Soomaali. Faadumo ma aysan ogeyn markii aan codkan ka duubay balse intaasi kadib waxay ii sheegtay in shakhsiyan ay khasaartay 45 milyan markii ay Galmudug ka qiimo beeshay lacagta shilin Soomaaliga ah. magacaygu waa Faadumo Taakooy. shilin Soomaali badan ay yaalo waxaa kamid ah 45 milyan oo markii shilin Soomaaliga la qaadanay ugu dhacday. hadda waa dareemi kartaa qof lacagteeda markii shaqaystaan la nacay khasaaro badan ay soo gaartay waxaa kamid ah lacagta shaqaysato lagu nacay waxna aad ka baahan tahay. hadda waxa badan dareemayna dadka reer Galmudug shilin Soomaali dhan loo shaqeeyo guriga loo tiirsan hadda cadaalad loo rajo ka qabnaa. Cadceed Sheekdoon waa aqoon-yahan abidkiis ku noolaa magaaladan waxa uu cabirayaa sababta ay la tahay inay suulisay isticmaalkii lacagtan iyo caqabadaha ka soo wajahay dadka danyarta ah. horta lagama isticmaalin muddo aan isleeyahay waa 7-8 sano waana dhuun ku dheg qof danyar waa aysan ku noolaan karin. EB Balasku waa aariyo waxaa ku noolaan kara qof beermantis ama bil soddonkeeda wax ku hela ama ku shaqaysta oo ganacsade ah laakiin dadka danyarta ah ee bulshada jilicsani waxba kuma helaan. lacagtaas waxaan isleeyahay 2 meelood looga yimid. dawlad la'aanta waa looga yimid. arrin kale oo la rabo in dadka aariya la kormariyo oo mabda' dalka kor wareegaya inuu yahay nawaan hubaa oo 2daas meelood ay ka timid. sidaas daraaddeed qofka soo toosay ee aan mobile heli karin, EB Plus aan heli karin, siminkaar xataa aan heli karin, nool oo alyoomku nool iyo waxa muruqiisa ku soo saarto oo hadduu maalintaas soo waayana biyihiisa iska cabba wax dana oo hayso ma leh. hadda cid aan ka filayno inay noo soo celisana uma jeedo oo isku daygii siyaasadeed aba wuxuu joogaa siyaasiyiintii inay dhabarka qonof isaga qabtaan. bulshaduna waa madluun
ilaahay bay leedahay ilaahaana leh haddii alla idmo waa noolaan doonaan wasiirka ganacsiga galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame waxa uu cabirayaa welwelka bulshadan ka haysata isticmaal la'aanta shilinkooda haddii maanta systemku uu xumaado maartay shirkadda waxaan iskala ama AFC-ga uu xumaado ama sahalka ama wixii la mida ama saad waxa artidhe wax kala soconaya koob shaah meel laga gadan karo ma jirto ganacsiguna daqiiqado adduunka ku kala hormara soo fahmin marka runtii dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo wax oo dhan hadda maartay banking systemkii iyo lacagihii in la soo sameeyo iyo waxaas oo dhan laga shaqeynaya laakiin waa arrin caqabad ah oo jirta oo aan la iska indhatiri karinin in aan hawo been ah waxba lagu kala gadgadan karinin waddanka hantidiisuna waxay ku jirtaa khatar